geesidiidano kaygow dhintiyo geeshiyaan hurdada ku gamaynayo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعلومات جمعة طريقة يكون بيجنتهاي تضبط بيش فبراير 2020 dhegeystayaal maanta waxaan idin barnaamij gaar ah oo nagu hadli doono taariikhda halgamaa ka soo jeeda gobolada Bari iyo Gardafuul ee dawlad goboleedka Puntland. inan kudo wanaag igashe awaal inan kudo wanaag. Bismillahir Rahmanir Rahim. dhegeystayaal maanta barnaamijkeenan gaarka ah waxaan uga hadli doonaa taariikhda halgamaagii weynaa ee Muuse Ismaaciil. sida la ogyahay wadan walba waxa uu leeyahay halgamaa iyo geesiyaal u soo halgamay gobonimada. Soomaaliya waxa ay leedahay halgamayaal iyo geesiyaal ka soo jeeda gobolada kala duwan ee dalka. maxaad ka ogtahay dhageyste taariikhda halgamaagii weynaa ee Muuse Ismaaciil oo ka soo jeeda gobolada Bari iyo waliba Gardafuul? waa halgamaa wuxuuna ka qayb qaatay xorriyadda gobolada dalka isagoo dagaal kula galay gumeystihii Talyaaniga deegaanada gobolka Bari iyo Gardafuul, gaar ahaan meel u dhow Muraacayo oo la yiraahdo Tiego. Muuse Ismaaciil waxaa loo bixiyay magaca Sagaale oo Talyaanigu u bixiyay. sababaha ugu weyn ee lagu bixiyay magaca waxa kamid ahaa inuu dagaalamayay isagoo 9 xabadood ku taala. arintaasi ayaa fajaciyo ama kaag la noqotay gumeystihii Talyaaniga, waxaana la yaabeen geesinimada uu lahaa Sagaale. waxaan arrimahaasi oo dhan ka wareysanay oo inoogu waramay Maxamed Maxamuud Xujaale oo ahaa goobjoog xilligii ay arinta dhacaysay, waxaana ina dhaxmartay sheekadan. waxa badeeyay waa Tiyeega waa gartay waxa sanadka hore oo waqtiga waxa badeynayona waa sanadka ay heshiiyeen hada soo ku yahay diireen Ismaan Maxamuud haye wadagaal ku kala tageen wadeera ku hirdanta dagaalkiisa ku kala kaceen oo ay soo nimanku ay soo noqnoqdeen oo Talyaani markii uu soo caga dhigtay oo boqor iyo Talyaani ballantay lahaayeen isu ballan fureen oo Talyaani boqor yiri dalka keligay malihi min baa ka boqorkii baa yiri marka waa kii si dagaalkii carruurtay dagaalka waa kii ku soo qaaday waa dagaalamayna yiri haddaan Talyaani nahay waa dagaalamayna waxaan aqoon waxaan ganaaqay waa ku soo qaatay dagaalkii hadduu soo qaatay waxa loo yeeray boqor wuxuu yeeray على السلام هل إنه كويه على السلام إنتين تكلنا هاي سن ما بلان تسن أيه هذي اللي يري تاسو علي ولا يسوي ذي يري وحاولوا بلنا وحكي الطائرة لبضوا بحضور هذا الكي أها وحوها على السلام هذا يسوي معدين لمن با هذا الاسود افسد قبايا ايه wuxuu yiri inta Ismaan Maxamed baa wuxuu yiri ergadaas timin meesha oo cali Saleebaanka in la dilo buu laayo haye meesha imaanayaan xagee weeye meesha la isugu imaanayaa وبرجل هاي برجل هاي حاجة ماشي كأهل باجي كان ما هاي هذي ويري تاسو داعي هو بقولش ده ولا ولا حملي ولا ولا بواجه وقرطتكو دوا ويري تقال يعني وايس خلافني وركو عين تاسو هاي واكان هذي
ونقبل ما عروس على ويله ما هي عارس اللباح فدي عنك أها بهضت عيل وها بهضت عيل وها عيل وها سيسي عدوك سيسي عدوك مركز رجع هو يعيد له ويبوي عمر كي ويرى يسيه ودحي وهو يا اسمان محمود يبوي وهو يعيد له ويا اسمان محمود أنا ما أنتم الله يقول ترابي يرجع سانقول عيا يا إسراء يرجع ما تتسس هي يرجع سير على يرجع وبقرو يرجع بقولوا يا هي haddii gabagaasu dhacay waxaa yimi nin baa gabiyey cali saleebaankiya haye wuxuu yidhi annaga gaagaabta iyo ninkii gaasirhii buu yidhi galab bagaare isma taago haye annaga gaagaabta iyo gumahana lakuma masay annaga gaagaabta iyo gumaha lakuma masay suldaana buu yidhi gacanta keen إنها قاعدة بهاي نوضة ما يسوي وحي تقالي إيه وحين هاي نوضة ما يسوي تاب بقر في البيت. هاي. لكن أدي وقول سلام يا بقر. هاي. بقر في وحي يري مكاس هالطماط هذا اللي يري حظي ويري واحد يرسع إنها قاعد يروح تقالي يسوي نقولنا نحن هذه سحيرة بيه. هاي. وحي حيرة قبل هو كيد تري. كيد من كلا يري واسول بيه. haddii halkaa lagu kala tegay oo dagaal gacan qaadne la yiri labo qolo baa rumeeyey gaal in laga dirigo laba qabiil baa rumeeyey magaalooyinka haddii la soo qabtay dhulka la yimi xeebihii laga soo wareegay oo talyaani qabsaday oo talyaani yimi oo boqor ka balaabay dagaalkii ka balaabay baargaan intii kaleeto waa aamus waa gacan ibana baa laysbadaay waxaa lagala diriray oo ballantaa qaaday reer muracyood iyo reer qandala inta kale waa ballan fudha reer qandala iyo reer muracyood baa talyaaniga la diriray labadaasaa dadna kaga dhintay sagaalle xaggee ku dhaawacmay sagaalle wuxuu ku dhaawacmay الكتيجة مقالة مرعية كعبته مقالة مرعية كعبته بين عيسى تركاكا جريال وقالي هل كاسو حبت كبلابي إلا ما وقت كاسو حبت يسوقت أحميه تلياني كلاي وحي وكلاي أنا بقول هذا الكا سيد الله لكن سنين مدة كجري هذا لو وصل بحواية والله marka sagaal xabaa ku dhacday halka kaga dhacday sagaal xabaa ku dhacday kadib hadii waa la qabtay miya kadib nin kale tabaa ku jiray baa la yiri meesha ninka aniga waxa la iigu sheegay wuxuu ahaa baa la yiri haba iskuul buu ahaa baa la yiri haye ninka kale to rasaastiisu waa daastay isaga sagaal hadii ku dhacday oo diriraayay oo loo tagay la qabtay bushintiisu qaniinay baa la iigu yiri haye hoose wuxuu qaniinaya buu yiri kaarka wixii la yiri wuxuu qaniinaya bushintiis maxaad u qaniinaysaa baa la yiri bushinta waxaan u qaniinayaa wuu yiri gaar iska soo hortaagay aan xabad ku riduwa baan bishinteeda oo soo qaniinay oo qaniin kadib gaalkii muxuu sameeyay gaalkii wuxuu kadib wuxuu sameeyay kii kadib gaalkii wuxuu sameeyay soo qaada kiina waa la soo xiray isagiina waa la soo qaaday kii rasaastiisa iyo wixii uu haystay iyo isagu wax kama ridin wixiis waa laga soo shubtay kii waa la soo xiray raggiisu u yeeray isagu wixii ninkaan hala qaado dhaawaca sagaalka xabo ku taalo murcay dul baa lagu keenay geesalay waa dul lagu geeyay xaabaa dul lagu geeyay caluula lagu geeyay haye dul
baabuur roog ma qaadin baabuur ma jiro halkaasaa lagu daaweeyey daawada halkaas ku qaatay talyaanigu marka sababtu u daaweeyey maxay ahayd odaga wuxuu u daaweeyey ninkaas uu yiri nin dalkayga iigu yimi geesinimadiisa dalkayga iigu yimi isagoo xabadahaasu qaba geesinimadiisa uu yiri maxaa bushinta u qanintalay uu yiri maanta nin dalkayga iigu yimi oo gaal ah aan xabad ku ridi waayey waagii dambe oo lala dirirayey amxaarka la dirirayey dowladda Itoobiya oo waagigaas ahaydna raggii dhowr nin buu soo socday marka talyaanigu magacay rag buu ka socday waxaa moogtahay geesana iyo xaabo iyo xagga iyo shishe rag badan kaba soo socay meeshuu raggeeda socda waxay ahayd oo yirgeesiyaasha iigu yeera murcayo iyo qandala nimankii ila diriray maantay ku dalkooda ha dhacsadeen geesiyaasha saasuu ku yiri oo dadkaas markii la kaxeeyey Itoobiya loo kaxeeyey iyagana madax baa laga dhigay waxaa lagu dagaalaysiinayaa inay iyo wax hagaaniin odaygii qandala calanka gubay talyaaniga iyo oday Sagaale waa labadaasiba waa ku jireen Maxamuud Faahiye Cumar Faahiye reer qandala ah labada nin oo murcayo ugu karti badnaaday Sagaale iyo ninkaas Cali Salaam reer qandala labada nin buu soo gaalku si xoog leh dagaalkii Itoobiya iyo talyaaniga dhexmaro adwal la yiraahdo xabashidu ay ku jabisay talyaaniga dagaalkaas ka qayb galeen maxaa ka jira in talyaanigu markuu Sagaale dhaawacay oday Sagaale in magaalada Murcayo la soo daaweeyay kadib markii la soo daaweeyay in magdhow uu siiyay arrintaas ma runba magdhowda oo dhan waxa la siiyay askartii haddii la soo daaweeyey sawgaalku wuxuu siiyey magdhowga dad badan baa qaatay laakiin waa loo kala badiyey waxaa loogu kala badiyey waxda ahayd yaad ahayd haddii lasoo dagaalamay oo talyaanigu iyo heshiis la galay dagaalka lasoo dagaalamay magdhowga dadkii si fiican u diriray iyo raggii yiri aabayaashood baa ku dhintay yiri iyo raggaasaa la siiyey dagaalkii raggaas ahaa Sagaale adu ma aragtay sagaalka xabadood meelay kaga yaaleen sagaalka xabadood ma tirin laakiin meelay kaga yaala xabadu ma aragtay dhulkay badidood waxay kaga oolaayeen feeraa kagama ooleen gacan waaxa iyo bay kaga oolaayeen oo ma ogtahay magaciisiisii gacantiisii qorada uu ku qabanayay bay u badnaayeen laakiin kagama dhicin inta feeraha kagama ooleen godka intee maalmood buu godka ku jiro ka dagaalamayay intuu ka dagaalamaya ma sheegin laakiin dagaalku in badan buu socday ilaa intee maalmood wax dooru socday dagaalku laba maalin dad badan baa dagaalkaa ku dhintay anaga waxa nagaga dhintay wadalmugaha intee kaga dhintay waxay kaga dhintay dagaalka dadku ku dhinteen oo lagu dhintay isaga xabadihiisu gaalku soo qubaayey iyo xoolihii loogu diriray xoolihii haddii laysugu tegay baa ragna dagaalamay markii ariga laga soo dhacayo dadka ragna aanu dagaalamin xoolahooda ku dagaalamay wixii xoolahii ku dagaalamay baa ku dhintay qaybtood laakiin rag badan oo maogtahay xabadu ku dhaceen baa jireen maasha allah